horta shirka iska qaba ma laakiin shirkan wuxuu ku soo aaday xilli aad u wanaagsan oo ku habboon in gobolkan loo sameeyo in arrimihiisa laga hadli karo horta haddii arrimihiisa laga hadli karo wax weyn baa isbedeli kara gaar ahaan xagga arrimaha amniga iyo horumarinta bulshada ee gobolka banaadir wuxuu noqday goob qof walba uu sheegto uu yidhaahdo waa caasimadda qaranka mar haddii caasimadda qaranka tahayna ani qofna igama xigo qofna lagama xigo ani haddaan ligama xiga garow inaan tago ligama xigo inaan tago qardho inaan tago mataqaana luuq inaan tago inaan kismaayo tago ligama xigo laakiin deegaan walbaba wuxuu leeyahay dad residual u ah residual waxaan ka wadaa dad saldhig u ah oo base ah oo fadhiya oo u baahan in horumarkooda laga hadlo waxaa ku nool gobolkan 2 milyan iyo xogaa 800 kun oo qof oo Soomaalidu wada dhan tahay laakiin haddana at same time wuxuu u baahan yahay in uu arrimihiisa ka mir dhaliyo oo horumarintiisa iyo amnigiisa uu sugo amniga ma sugi karo ciidan loogu talagalay inay wax ka qabtaan mataqaana xuduudaha ciidanka federaalka waa ciidan waxaan ka xuduudaha uu taagan inay mataqaana xuduudaha dhibka ka jirto dalka laakiin ciidanka xuduudda ayaa ciidanka deegaanka noqday ciidanka deegaanka waa booliiska iyo nabad sugidda iyo ciidanka dowladda hoose iyo arrimahaas ka yaqaan yaa magaalada ku nool yaa xalay gurigan seexday yaa jidkan magaciisa muxuu yahay guriga nambarkaas muxuu yahay yaa ku soo biiray xalay yaa ku soo noqday yaa ogaan kara waxa ogaan kara dadka deegaanka anigu waa qabaa this is my own personal opinion waa qabaa runtii wuxuuna muujiyey gudoomiyaha gobolka asagoo runtii arkaya asaga iyo madaxweynaha iyo prime ministerka iyo intooda dhan iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo aqalka saraba ayagoo midaysan oo runtii maanta horumarinta dalka ka wada shaqaynayo haddana gudoomiyaha gobolka waxaan moodaa nin dhalinyaraha oo wanaagsan oo runtii shaqo badan ka qabanaya gobolka isagoo ah haddana isagoo saaxiibo la la jaan qaaday waxna la qabsanayo lana samaynayo taladii tusmadana ka qaadanayo madaxweynaha iyo prime ministerka waxaan qabaa in shirkan la qabanayo la xoojiyo laiskugu imaado la mideeyo dhaqan iyo dhaqaalaba la geliyo isla markaana laga soo saaro asoo juhdi badan la gelinayo wax ku ool hadal ah oo aan noqonin ku tiri kuteen oo noqdo wax macquul ah oo gobolkii horumarintiisii iyo bulshadiisii iyo dhaqankiisii iyo dhaqaalihiisii lagu meelayn karo oo lagu mataqaanaa oo daras uma baahna maanta gobolka wixiisa waa dhan yahay waa la yaqaanaa wax ku nool waa la yaqaanaa inta shaqo laga qaban karo waa la yaqaanaa sida loo xayndaabi karo amnigiisa waxaan qabaa in gobolku u soo feejignaado u soo jeesto laguna gacan siiyo in shaqada gobolka uu u baahay maanta in la qabto anigu waxaan qabaa waa forum ama waa congress ama waa mataqaana tala sugayaal loo baahnaa in gobolka maanta dadkiisa ay fadhiistaan ka taliyaan wixii ka soo baxana markaa ay madaxda qaranka iyo gudoomiyaha gobolka ay wax qabad weyn oo la taaban karo ka sameeyaan shirka waaba cad yahay baa saaba leeba mataqaana ajenda uma baahna in aniga wax ka muujiyo aniga taladeeda laga bixin oo ah wixii laga sameeyo in laga hadlo amniga iyo horumarinta gobolka banaadir amniga iyo horumarinta gobolka banaadir waa cad waa wax qeexan waay waxa qeexan waxa weeye in amnigiisa gobolka waqti dhibaato badan ka taagan dhibaatadiisi ma sugna qolo walba meel ku qoban tahay barkay gobolkii shaqadiisa oo dhan baa wasaaradda amniga wasaaradda gudaha wasaaradda mataqaana gaashaandhigga wasaaradda badan baa mataqaana wasaaradda maaliyadda wasaaradda badan baa waxaad moodaa inay la qaybsanayaan shaqooyinkii gobolka laga rabay iyaga inay qabtaan anu waxaan leeyahay gobolka ha u soo feejignaado ha u soo noqdo sidii 69kii laga soo bilaabay ilaa iyo 90kii markuu dalka burburay gobolka banaadir siduu ahaa anu waxaan ka tirsanahay 13kii dhalinyarada gobolka banaadir mataqaana madaxda ka ah degmada xamuuriyana gudoomiye degmo ka ah warku dhalinyarada waa haystay marka dambe xasaab shiriya waras labada baa la soo shaqeeyay aniga iyo shirwac iyo rag badan baan heen wali yaqaan boona shirwac waa haystay maxaan faarax ciise xamar jabo haystay ani xamuuriyana haystay dhalinyaradii runtii gobolka banaadir u soo halgantaanayeen oo ka soo shaqeeyay from 1975 gobolka banaadir dawladda dhaxal lacag weydiisan jirtay maanta gobolka banaadir dawladda dhaxal lacag weydiisanayo it's shame wax laga xishoodo way maaha in mataqaana gobolka banaadir waxa laga rabaa in uu shaqadiisa asalka u soo noqdo haddii la helay alxamdulillah gobolka ka hadli karo dhigi karo duq magaalo ka hadli karo dhigi karo waxaan rabaa in gobolkii aan nooleeno dawladina aan taakuleeno waxna ka qabano dawladana garab istaagno xuquuqdii mataqaana gobolka laana aan soo dhicino anigu waxaan leeyahay arrinta ayada madaxda qaranka gacanaha ku siiso